بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الهانتين بأخيارتا هودا نغلا سعوتاي كسو دوادا داودايال وربحينا إنو مركالي وهادلا إنو هدو الله إدمو وراركي ودن بيد دقالada xoogana ururka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Soomaalida gobolada Afdheer iyo Shiniile warkii u dambeeyay daawadayaal ayaynu idinla wadaagayna hadu alla idmo iyada oo ciidamada liyu booliska ay sheegeen in ay xadka Soomaaliya ku soo dhaweeyeen al-shabaab dagaal xoogan maanta ay kula galeen agagaarka degmada Feerfeer ee ka tirsan gobolka Shabeelle waxayna soo bandhigeen sawirro iyo muuqaallo muujinaya hub iyo agab ay ka furteen al-shabaabka ay la dagaalameen sidoo kale daawadayaal warkeennan waxaad ku maqli doontaan ciidamada deegaanka Canfarta ayaa weerar xoogan ku soo qaaday shacabka Soomaaliyeed ee ku nool galbeedka gobolka City ayagoo ka faa'iideysanaya dagaalada xoogan ee ku furmay deegaanka Soomaalida ciidamadii ku sugnaa galbeedka City qaar kamidana lagu soo xoojiyay ciidamada ka dagaalamaya xuduudka Soomaaliya iyadana faahfaahinaynu ka bixin doonaa haduu la idmo maxaa sababay dagaalka xilligan iyo awoodda badan ee al-shabaab ay saarayso deegaanka Soomaalida faahfaahin kooban qodobadaas iyo kuwa kale ayad warkeenani ku maqli doontaan haduu la idmo taariikhdu waa 25 bisha 7 2022 waana habeenimo talaada ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan haddii aynu ku bilowno gobolka Shabeelle deegaanka Soomaalida dagaal xoogan oo maanta duhurradii ka bilowday ayaa ciidamada liyu booliska ay sheegeen in ay soo caydiyeen kooxo al-shabaab ka tirsanaa oo lagu qiyaasay 300 ilaa iyo 350 in ay tiradooda gaadhaysay kuwaasi oo si isxigxigta uga soo gudbay xadka Soomaaliya dhinaca gobolka Hiiraan ciidamada liyu booliska ayaa weerar ilaa iyo 5 dhinaca ku qaaday kooxahaasi waxa ayna sheegeen in ay jabiyeen isla markaasina ay hadda ku soo caydsanayaan xadka gobolka Hiiraan ayna doonayaan in dhinaca iyo Soomaaliya ay u talaabiyaan si kastaba khasaare ayaa jira dhinacyada soo kala gaaray dagaalamaya al-shabaab ayaana xoog aad u badan saartay gobolka Soomaalida iyada oo aan faahfaahin dheeraad laga haynin ujeedada kama dambaysta ee ay ka leedahay dhinaca gobolka Afdheer sida aad warkeenii hore ku maqlayseen ilaa iyo 3 isku dhac ayaa jiray oo xalay ilaa iyo maanta ahaa kadib markii kooxo ka tirsanaa firxadkii al-shabaab ee hulul iyo afcada laga soo saaray ciidamada liyu booliska oo howlgallo dheeraada ka sameynaya gobolka Afdheer ay ku kulmeen meelaha qaarkood waxaana la sheegay in shakhsiyaad baxsad ah ciidamada liyu booliska ay ku dagaalameen gobolkaasi Afdheer shacabka gobolka Afdheer iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida ayaa garab istaag u muujiyay ciidanka xoogga gaarka ah ee liyu booliska shacabka ku nool degmada Baarey qayb kamid ayaa hubka qaatay iyaga oo sheegay in ay istifaacayaan ayna ku biirayaan ciidamada liyu booliska sidoo kalena aysan ogolaan haynin in dad isqarxin haya ay deegaanka soo galaan aysan magaalooyinka iyo dhulka ay ku nool yihiin qaraxyo aan dadka lagu halaagayo laga sameyn doonin si kastaba gobolka Afdheer iyo gobolka Shabeelle labadaba al-shabaab ayaa gudaha u galay ilaa iyo haddana siyaabo kala duwan ayay ugu jiraan ciidamada liyu boolisku waxa ay gaadheen sida ay sheegeen guul ku aadan dagaalkii labada dhinacba ay ku galeen waxaana dadka deegaanka aynu la xiriirnay oo u dhow degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle ay noo xaqiijiyeen in hadda xabadda iyo dagaalku uu ka fogaaday kolkii horena waqtooda ka bilowday oo hadda uu xagga iyo dhinaca xadka Soomaaliya u sii dhamaanayo waxaana la maqlahayaa daryaanka rasaasta ay dhinacyadu adeegsanayaan ciidamada al-shabaab ayaana dib waxay ugu carareen dhinaca xuduudda Soomaaliya ciidamada liyu booliska ayaa soo bandhigay hub iyo agab ciidan oo ay ka furteen al-shabaabka maanta ay kula dagaalameen dhinaca degmada Feerfeer halkan dagaalku uu ka dhacay ayaa u dhaxaysa degmooyinka Higlooley Feerfeer iyo degmada Shilaab ee gobolka Qorraxay waxaana la sheegay in ay ugu dhowdahay dhinaca Feerfeer dhulkani ma aha sida dhulka gobolka Afdheer oo kale Afdheer waa dhul buuraley iyo hawd ah oo ay ku dhuuman karaan ama firxadkoodu uu gali karo laakiin dhinacan waa dhul ciid ah oo siman isla markaasina meelo ay gabaad ka dhigtaan aysan heli karin waxyaabaha la yaab kale la arkay ee ciidamada aynu ka soo xiganay waxaa kamid ah al-shabaab kasta oo la dilo jeebkiisa waxaa ku jira lacag dollar oo aad u badan taasi oo muujinaysa in qorshahani oo ahaa mid laga baaraandegay isla markaasina al-shabaab ay go'aansatay in deegaanka Soomaalida nabadda ay si rasmi ah uga qaado shakhsi kasta si uusan u baahanin oo dadka uusan wax u weydiisanin in wixiisa uu wato haddii ay noqoto in uu wax magaalooyinka uga baahdo oo uu soo gadanayana asaga oo markaasi
shacabka isku ekaysiiyey oo sida qof shacab oo caadiya ah in uu degmooyinka iyo magaalooyinka wax ka soo gato waxaa la sheegay qorshahani oo ahaa mid aad looga sii shaqeeyey in xataa sharciyo iyo mustabaqooyin deegaanka ay ku dhex mari karaan intooda ugu badan loo sameeyey kooxahan hadda duulaanka ku qaaday deegaanka soomaalida degmooyinka inta badan ka tirsanaa dhinaca gobolka afdheer ayaana la sheegay iyo dhinaca liibaan kuwo ah in sharciyo looga sameeyey laguna arkay kooxihii la laayay in ay haystaan mustawaqooyin ay ka goosteen deegaanka soomaalida si kastaba daawadayaal faahfaahin kale ayaan idinla wadaagi doonaa hadduu alla idmo balse hadda dhinaca iyo galbeedka gobolka city ciidamada qoomiyadda canfarta ayaa weerar xoogan ku soo qaaday shacabka soomaaliyeed ee ku nool galbeedka gobolka city magaalooyin iyo tuulooyin hoos yimaata magaalada cundhufo ee galbeedka gobolka city ayaa weerar xoogan oo ay ku soo qaadeen waxa ay ku laayeen dad shacaba khasaare xoogan ayaana ka dhashay shacabka ayaana la sheegay inay iska difaaceen kadib markii canfartu ay ogaatay in ciidamadii liyu booliska ee deegaanka soomaalida loo qaaday dagaalada al-shabaab ay ku soo qaaday deegaanka ee dhinaca xadka soomaaliya ayaa iyaguna ay weeraro xoogan ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City waxaana dib loo soo celiyay oo ay ogaadeen ciidamadii liyu booliska ee ku sugnaa galbeedka gobolka City qaar ka mid ah si loogu xoojiyo ciidamada ka dagaalamaya xuduudka dhinaca gobolada Afdheer iyo Shabeelle dawladda Itoobiya ayaa u muuqatay inaysan wax dan ah ka lahayn gardarrada ay canfartu sameynayso iyada oo doonaysa in ay xasuuqdo dadka Soomaaliyeed dhulkana iyadu ay la wareegto xilligan oo Soomaalidu ay ku jirto dagaal xooggan oo ku soo qaaday al-shabaab ayaa dhabar jabin ay sameynayaan si Soomaalidu ay meesha uga baxdo dhulkeedana ay u qaataan Itoobiya ayaana u muuqata in aysan wax dan ah ka lahayn aanana kala hadlaynin canfarta duulaanka gardarrada ee waliba xilligan arax ka jabinta ay sameynayso ay ku soo qaaday deegaanka Soomaalida waxayna ka faa'iideysanayaan dagaalada kale ee ciidamada Soomaalidu ay ku jiraan ee dhinaca gobolada Afdheer iyo Shiniile waxay sheegeen dadka deegaanka oo aynu la xidhiidhnay dagaal xooggan oo iska difaaceen lagu soo qaaday ilaa iyo haddana dagaaladu aysan dhammaanin waana mid ku talagal ah oo jaanis ah waana dagaal xooggan oo ciidamada liyu booliska deegaanka canfartu ay soo qaadeen waxayna ku soo qaadeen dadka Soomaaliyeed ee ku sugan agagaarka magaalada Cundhufo ee gobolka City iyaga oo awood adeegsanaya isla markaasina u muuqda in ay doonayaan inta dhinacan lagu mashquulsan yahay in ay qabsadaan gobolkaasi oo ay si aan markaasi cadaynay mar walba u sheegtaan aynana marar kala duwan yiraahdeen aynaga ayaa leh iyada oo aysan dhulkaasi oo dhan weligood degin dad canfar ah wax lug oo kalena aysan u soo gelin haddana daawadayaal warbixin dheeraad oo ku aadan dagaalada ka socon haya gobolka Shabeelle iyo waliba dhinaca Afdheer كسرين سيدا يشيغن مسؤولين كميدا حكومة deegaanka Soomaalida oo la hadlay iyo taliyaasha ciidamada liyu booliska ee ku sugan aaga dagaalka iyo guud ahaan gobolka Shabeelle waxay xaqiijiyeen in ay gabi ahaanba la wareegeen aagii maanta dagaalka uu ka dhacay ee Laasqurun oo ka tirsan degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle oo xadka deegaanka uu la wadeego Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan ilaa hadda ima aysan cadeynin imana aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac soo kala gaaray laakiin waxa ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin kala duwan oo la hadlay inay gabi ahaanba gacanta ku dhigeen kuna sii daba jiraan maleeshiyaadkii al-shabaab ee gudaha deegaanka ku soo galay ee maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa aaga Laasqurun sidoo kalena xoga ay hadda helayaan mas'uuliyiintu waxay sheegeen inay jiraan in caawimaad ama gurmad ay helayaan al-shabaab oo laga yaabo inay soo rogal celiyaan laakiin waxay gabi ahaanba ay sheegeen inay hadda ka sii saarayaan ku dhow yihiin inay xadka ka saaraan arrintaasi oo aan xaqiijin karin BBC ahaan ay hadda ila wadaageen marka arrimahaas ugu dambeeyay dagaalkii maanta ka qarxay ee degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle Ismaaciil madaxweynaha dawladda deegaanka waxa uu maanta la kulmay ciidanka qaranka ee magaalada Goday kulankaas madaxweynaha maxaad kala socotaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar maalmihii la soo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay al-shabaab soo gashay gobolka Afdheer wuxuu ku sugnaa gobolada Afdheer iyo Shabeelle maanta waxa uu la kulmay hogaaminta iyo ciidanka militariga ama militariga Itoobiya oo fadhigoodu yahay magaalada Goday runaantii sida ay warbaahinta deegaanka sheegtay waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta waxayna u egtahay inay ku biirayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab oo qayb ka
noqonayaan iyadoo warbaahinta deegaankana ay sheegtay inay xoojinayaan ciidamada liyu booliska marka waxay u egtahay hadda inay isgarabsan doonaan oo iska garabsan doonaan ilaalinta xadka deegaanka oo ahayn markii koobaad ee dagaal ama deegaanka gudaha ay usoo gasho al-shabaab oo laba dhinac oo gobolka shabeelle ay gobolka afdheer ah kasoo galay maanta mar sii horeysay mas-uuliyiin aan la hadla waxay ii sheegeen dagaalkii maanta inay qaadeen oo duulaanka qaadeen ciidamada liyu booliska oo aan lagu wehelinin xogahan helinina waxay sheegayaan dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay gudaha deegaanka soomaalida in ay keli ku ahaayeen ciidamada liyu booliska ee deegaanka marka la kulankan waxay u muuqanaysay ama u egayd inay ahayd fariin ah in ciidamada militariga etoobiyana inay qayb ka noqon doonaan dagaaladan lagu ilaalinaya xadka laguna sugaya amniga deegaanka aad buu u mahadsan yahay ismaaciil ibraahim buurgaab oo wararkii ugu dambeeyey dagaalka inala socodsiinayay haddaba maxaa keenay in al-shabaab oo aan weligood ka gudbin xuduudda etoobiya ay weeraro kaga qaadaan meelo kala duwan oo xuduudda ah su-aashaas iyo qaar kale ayaan hordhignay jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo hore u ahaa taliyihii qaybta 11aad ee ciidanka xoogga dalka haatanna arrimaha amniga ka faalooda faarax lamaane ayuuna u waramay horta waa arrin mucjizo ah oo la yaab leh laakiin waxaan qiyaasaynaa sababta keenaysa waxay tahay dowladda etoobiya gudaheeda waxaa ka socda ururo hubaysan oo dowladda kasoo horjeeda sidaad la socotaan madaxweyne sheekh shariif madaxweyne sheekh xasan iyo madaxweyne farmaajo waxa weeye waxa ay joojiyeen kululahaanshihii dowladdii mucaaradka etoobiya dadka ah ee soomaaliya mari jiray sidaas darteed waxay bilaabeen dhinaca kale inay nimankii shabaabka ahaa nimankaa ku xirmaan dad badan way inkirayaan laakiin dad ethoobiyaana oo badan baa ka mid ah marka horta jaaniskaas waa jiraa tan labaad mabda-oodaaba aba inay bariga africa oo dhan isku ballaariyaan marka labadaa qodob baan anugu u nisbaynayaa iyadoo kooban dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in gacan saddexaad ay jirto oo al-shabaab la adeegsanayo arrintaa isleedahay way ku jirtaa meesha horta shabaab anigu sidaan aaminsanahay waa jiraan dowlado xiriir lale way jiraan waa aniga aragtidayda wax muuqdana maaha dowladaha caalamku si muuqata iyo si dadban bay arrimahan oo kale uga qayb qaataan laakiin caalami ahaan ma dhawaaqi karaan laakiin waa isleeyahay waa jiraan dowlado qarsoon soomaaliya iyo etoobiya xuduud dheeray leeyihiin aaway kaalinta ciidanka soomaalida ama ha noqoto inay iyaga falgalka ku horeeyaan ama ha noqoto in ay xogta la wadaagaan ee wadamada dariska ah horta waa mahadsan tahay saxiibu horta ciidanka soomaaliyeed dad badan oo loo geystaa jira oo uga imaanahaya caalamka waxaad la socotaa dowladdii soomaaliya in la cunaqabateeyey in hubkii ay u baahnayd ee cadow lagula diriri lahaa lalama iman ciidanka soomaaliya marka dhibka jiraa wuxuu yahay ciidan aan qalabaysnayn wuxuu u dhigmaa laba jabadood oo iska hor yimid buu noqonaya marka kow ciidanka waxaa dhibaata uga timid waxa weeye waa cunaqabateynta heerka caalami ah labo dhaqaalaha dalkayada oo kooban marka labadaasaa horta ciladood baa jira saddex nidaamkan federaaliga ah oo aan la fahamsiisnayn oo dadka dowlad goboleedyada ama iyo dowladdii dhexe mar walba ay isjiijiidahayaan marka koritaanka hay-adaha federaalka dhaawac badan baa soo gaarahaya marka ciidamada xoogga dalkuna waxay ka mid yihiin hay-adaha dhibaatadaas ay haystaan bay ka mid noqonahayaan laakiin inta karaankooda ah way dadaalaan waxaa dheer oo ayaga ha fiirine waxaad fiirisaa tirada ciidanka tababaysan ee african unionka magacooda wata ama xoojinahaya dalalka ay ka kala socdaan oo degmooyinkay iyagu haysteen aagagooda lagu diyaar garoobahaya taa iyadana qiimay marka ciidanku eed ma lahan awoodiisa iyo kartidiisa ayuu ku hawlgalaa adoo iisoo koobaya jenaraale saamaynta ay arrintan ku yeelanayso amniga xuduudaas dheer ee ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya oo in badanna la sheegi jiray etoobiyaanka inay inta badan kasoo gudbaan xuduudda maxay noqonaysaa walaalow horta waa khasab
haddii dal la deriso soomaaliya oo kale la deris ah amnigiisa uu khatar galo sida horey aan u arki jirnaba inay kusoo xadgudbaan xuduudada dalka waan arki jirnay laakiin anigu waxaan u malaynahayaa dowladda Ethiopia inaanay samayn doonin xadgudub intaa la eg xaduudkeedana ay dhowran doonto saamayn waa ka imaanaysaa oo culus oo waxaad la socotaa taliska ka horreeyey isku safarku ma badnayn hadduu jirana wax yar buu ahaa dadka khatar baa naftoodu geli jirtay oo xabsiyo iyo dhibaatooyin ay la kulmi jireen marka saamayn adni oo khatar ay yeelanaysaa